الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. أما بعد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. waxaynu sii wadi doonaa in sha Allah axkaamtii soomka iyo masaa'ilkii ku saabsanaa bisha Ramadaan, wixii sunnah iyo wixii ay ku xumaanayso. waxyaabaha bishan dhexdeeda haboon waxa kamid ah qofku inuu suxuurto, oo suxuurtu waajib maaha laakiin waa sunnayaasha soomka. nabiguna sallallahu alayhi wasallam uu ina faray tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka. suxuurta buuri suxuurta baraka ku jirta, marka xataa hadduu qofku kari waayo caafimaad ahaan oo aanay waafaqaynin wax yaroo khafiifa inuu iska qaato ayaa u wanaagsan. laakiin aragtida dadkeena qaar ay qabaan ee odhanaysa qofku haddii aanu suxuuranin soomkiisu buraya, taasi sax maaha. soomku suxuurta waxba uma noqdo, waa se sunne baraka ku jirta. markuu nebigu leeyahy waa barako maadiya iyo mid macnawi ah. mid la arkayaa way jirtaayo qofkii dee tamar buu u helayaa soomkii uu iskaga xejiyo. mid macnawiyana way jirtaayo sunnihii nebigu waafaqaya sala allahu calayhi wasalam. nicma suxuuru lmu'min attamr. waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha la cunaya isagoo kala qaaday. qofka mu'minka ah waxa u wanaagsan waxuu ku suxuurto timirta. afurkiina iyadaa u fiican, suxuurtiina iyadaa u wanaagsan. waxyaabaha ay ka kooban tahay oo qiimo badan daraaddeed iyo taqdiyadeeda. axaadiidtaasi waa saxiix weeye. sunnayaashiisa waxaa ka mid a tacjiilu lfitr, in afurka hore loo soo dhigo oo marka la hubiyo inay qoraxdu dhacdayba qofku hore isaga afuro oo aanu dib dhigin. nebigu sala allahu calayhi wasalam isagoo taa dhiiri gelinaya waxau yihi xadiidkii bukhaari, laa yazaalu nnaasu bikhayrin maa cajalu lfitr. dadku khayr bay ku sugnaanayaan inta ay afurka dadejinayaan. markay soomayiin inay afurayaan, mar hadday afurka soo dadejinayaan khayr bay ku sugayaan. khayrkaa culimadu waxay ku fasireen sunnii bay ku taagan yihin. sunnii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadii nebiga may khilaafina, si saxa ayay sharciga ugu camal falayaan. arrintaasina aada bay muhiim u tahay. waxaa kaloo nebigu uu xusay calayhi salaatu wasalaam ama dhaqankiisa ahaa, siday asxaabtu inoo soo gudbiyeen waxyaabaha uu isticmaalaya markuu afurayo ayay inoo sheegeen. wuxuu isticmaalaya rudabaat, waa timirta xasiidda ah. haddii uu taa waayana tamaraat, timirteennan caadiga imika innagu aynu isticmaalno. ilaan timirtii malabkeeda lahaydee cusbayd ma hayno oo meesha iyadu ka baxduunbaa taa laga helaa. marka haddii aan taa la hayninna timirtan caadiga ah oo tiro isdhimana 3 ilaa 7 saas oo kale. haddii kalena biyaha cad buu isticmaalayay. qolada caafimaadkuna hadda sidaa ayay ayidayaan waxyaabaha la qaadanaya inuu yahay wax aan cuslayn, oo sidaa uu nebiguba maqhribka ka hor samaynayay in qofkii uu fududeeyo afurka. waayo calooshii soo madhnayd 18 saacadood ama 14 saacadood habkii ay kolkii hore raashinku ku jiray u shaqaynaysa waa ka duwan yahay. oo iminka waxaa loo sheegay meeshii cunna ma jirtee inay ifraasaadkeedii iyo dheecaamadii ay soo daynaysay joojiso, xaaladeedii walaaqa iyo howlgalka ahaydna ay hakiso. marka calooshiio sidaa isaga degan waa in lagu ridaa cunno fudud si ay markaa dhaqaaqeedu uu u sahlanaado. laakiin haddii cunno culus lagu rido caafimaadaha khatar bay ku leedahay, mana fiicna. innagana waad garanaysaayo wax wada shiilan ayaynu dabada u qabanaa oo saambuuse la badsadaa kow ka yahay. dadka qaarkoodna hilibka iyo darabtaba ay horraysiiyaan. markaa caafimaad ahaan sidaa uu nebigu sheegay ayaa sax ah in raashinka fudud, xataa biyaha laftigooda halkan aynu ku dadaallo kuwa qabow waxaa ka fiican kuwa aan qaboobayn ama diiran. haddaad kari weydana kuwo caadiya inaad isticmaasho. wax kastoo sharcigeenu inoo sheegay xikmaddiisuu leeyahay. maqhribka dabadiba markaa qofku wixii uu cunaya uu maaragtay korkordhin karaa. sunnayaasha waxaa ka mid a
inuu nebigu inoo jideeyey ducada qofku dee marka uu soomayeyna duco la aqbalaa buu leeyahay markanuu afurayana duco la aqbala ayuu leeyahay ducooyinkiisa waxaa ka mid ahaa habata dahaba dama wabtalat alcuruuq wahabata alajru in shaa allah haatan haraadkii waa tegey xididadiina waa wada qoyeen ajrigiina wuu sugnaaday ilaahay agtiisa biidn illaah in shaa allah hadduu ilaahay doono ajrigiina helnay ducooyin caama la iskaga ducaysan karaa kuwa soo aroorayna kuwayaalahaasa ka mid ah waanay habboontae wakhtigaa qofku cinda alfitri marka uu afurayaa buu nebigu sheegay marka uu afurayo iyo markuu afuray labadaba noqon karta inuu ducada iska badsado way wanaagsan tahay sunayaasha waxaa ka mid ah albucdu can irafath qofka wixii soomkiisa wuxu dhimaya dhacdhaca ee afxumo ah ee aan wanaagsanayna inuu iska ilaaliyo aad baanu nebigu uga digay axaadiid dhowra sala allahu calayh wasalam xadiidkii bukhaari waxa uu ahaa idaa kaana sawmu yowmi axadikum falaa yarfuf maalinka uu midkiin sooman yahay ha iska ilaaliyo rafadka waxa la yidhaahdo hadallada dembiga ah ee foosha xun rafadku waxa weeye alwuquucu fi lmacaasi waxalla wixii dembi lagu dhaca ah markaa arrintaasi waxay ku ilaalinaysaa soomkaaga laxa jeclaynu ka qabno daraaddeed haddaad taa diidana ka macaashi maysidoo nebigu wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam man lam yadac qowla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun fii an yadaca dacaamahu wa sharaabah qofku hadduu hadalka xun iska dayn waayo iyo hadallada dembiga ah iyo ku dhaqankooda oo had iyo jeer uu iska caadaysto afxumada aflagaadada dacaayadda macaasida waxa uu badiyo ilaahayna muraadkama laha uma jeedo inuu iska daayo cunnada iyo cabidda macnaha soom marka la leeyahay wixii dembiya waa inuu qofku ka afxidhnaado ee soomkiisa dhaawacaya ee waxyeelaya waxalla wixii xaaraama sida maal beentii isku darkii wixii la odhan jiray markhaati beenaalaha waxaasoo dhan waa inuu ka fogaadaa jaraa'imkada iyo dembiyada waaweyn nabigu calayhi salaatu wasalaam arrintan mar saddexaad buu sii adkeeye waxau ihi ruba saa'imin laysa min siyaamihi ila aljuucu waalcatash waxa iska badan buu ihi qof sooman oo soomkiisa uun kala kulmay juuc macnaa gaajo wuu gaajooday laakiin meeshii ajri ma yaallo waa digniinuu nebigu bixiyey sala allahu calayhi wasalam waxyaabahan habboonay waxaa ka mida dadkeennu waxay ku mashquulsan yihiin ee musalsalaadka aadka dadka weliba guryaha iyo loogu daawado aad baynu uga digaynaa oo ajrigaagii iyo abaalkaagiiba wax badan la degayaanoo qaladaadkaa ku badan jalasaadka faariq ahina waa la mid fadhiyada haddii aanay sharba lahayn aan faa'iidada lahayn waxaa sidoo kale iyadoo ujeeddo aanad lahayn suuqan saxmadda badan ee dumarka iyo ay ku soo urureen dadka badani ee ishaadu ay qabanayso inaad dhex wareegto habeenkii iyo maalintii labadaba waxaan iyaduna habboonayn dumarku marka ay imanayaan masaajidka inay soo marsadaan cadarka iyo unsiga iyo udgoonka maadaamuu nebigu calayhi salaatu wasalaam aada uga digay oo dee qofkii oo cibaadaysanayaa arrimaha qaladka iyo gefka inuu ku dhacaa sax maaha waxaan habboonayn qaylqaylinta waxaa la yidhahda iyo buuqa xigmadda soomka laynoogu waajibiyey ka mid tahay qofku inuu edabsanaado oo afkiisii iyo aadinkiisii iyo uurkiisuba uruursanaado rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau uhi wain imru'un qaatalahu aw shaatamahu falyaqul innii saa'im hadduu qofkii iska urursanaa afkiisa haystee midila dagaalama ama caayo ha yidhaahdo waan soomanay macnaheedu waxa weeyaan buuqa qaylada cayda tirsiga waad joojinaysaa laxa jecla aynu ka qabno awgeed soomka waxaynu iska yaraynaynaa raashinka badan oo qofku uu qaadanayo oo bishan waxaa loogu talagalay in nafta laga yareeyo cunnada oo jidhka iyo ruuxda labaduba ay tamar iyo xoog helaan ilaahay baa sidaa u daneeyey subxaana wa tacaala qofkii uu abuuray nebiguna sala allahu calayhi wasalam cunnada aadka u badan isagoo ka digaya waxa uu lahaa maa mala-a bnu aadama wacaan sharan min badni qofka bani aadamkii caloosha weel ka shar badan ma buuxiyo weelkuu buuxiye ugu dhib badani waa caloosha uun weelalka kale haddii aad maanta oo dhan buuxsanayso waxba kuma yeelaan tan laakiin dhibaataa ka timaada aynu maanta aragnay cudurrada faraha badan ee had iyo jeer laga cawde la yidhaahdo ha lala noolaado
dharaga iyo cunays dhex qaada ayay u badan yihiin sunnayaasha bishan waxaa ka mid a inaynu kulmino aljuudu bilcilmi walmaali waljaahi wax alla wuxuu qofku heli karaya inuu dadka ku taro hadday tahay adduun uu siiyo iyo aqoon uu ku caawiyo qofba ka uu wax u sheegi karo uu gaadhsiiyo iyo erge uu walaalkii ku taro sidaasaanu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkii saxiixeynka min xadiid ibni cabaas waxa uu cabdilaahi leeyay kaana rasuulu llaahi ajwad annaasi bilkhayr nebigu sidiisaba waxau ahaa wax alla wixii samaa ee khayra ee horumara dadka isagaa ugu deeq badnaa inaha aynu soo sheegnay dhinac kastaba ha ahaado wixii cid lagu tarayo isagaa ugu deeqsisanaa deeqsinimadiisuna waxay usii badnayd ramadaan waana wakhtiga caalamka sare looga imanayee malakii malakuljibriil la odhan jiray uu u imanayo waxaanay ka mid yihiin inuu qofku isku daro soomka iyo sadaqada waxyaabaha jannada ilaahay lagu helo ee sabab u noqonaya rasuulullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam jannada isagoo ina jeclaysiinaya wuxuu yihi jannada waxaa ku yaala guryo yuraa daahiruhaa min baatiniha wa baatinuhaa min daahiriha qofka joogaa gudaha u arkaya ka guduhuna dusha u arkayo waa guryo wada muraayada oo aada iyo aada u bilicsan waxaana iska yeelanaya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam liman adcama acaam qofka raashinka bixiya ee dadka wax siiya wa alaana alkalaam hadalkana dadka u dabciye aan afxumayn ee hadalkiisu macaan yahay waa taabaca siyaam soomkana israaciya ee sunno iyo faralba iska dabageeya soomkiisu uu badan yahay waa sallaa bileyli wannaasu niyaam habeenkiina tukanaya cibaadadaa isu taagaya wakhtiyada dadku ay seexdaan markaa xasanaadka iyo cibaadooyinkaa faraha badan waxyaabaha lagu mutaystaabay ka mid yihiin jannada ilaahay waxaa kaluu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam man fadara saa'iman kaana lahu midlu ajri hayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay qofku hadduu qof sooman waxa furiyo waxa uu leeyahay kaa sooman ajrigiisa in la eg culimadu waxay leeyihiin dee waa inuu dhargiyaa oo aanu hafrin hadduu xabad saanbuusaa u dhiibo afurintii ma noqonayso man fadara ficilka facala wuxuu tusiyaa takhiir had iyo jeer shaygii oo la badinayo ayaa uu tusinayaa markaa kollayba waayi maayo ajrigiisa qofku wuxuu bixiyo laakiin waa qofkii wax waxtar u noqdaa oo uu dhargiya hal mar marka ajrigiisii buu leeyahy tahyi sunnayaasha waxaa ka mid a tahyi'at اlajwaa ajwaa الnufuus lilcibaada bishan ramadaan in jawiga loo diyaariyo cibaado oo jawiga dadku marba waxbay u diyaariyaan mar shaqaa loo diyaariya mar ciyaar baa loo diyaariya mar farxad iyo dalxiis iyo dabaaldeg hadda waa jawigii cibaadada marka taa macnaheedu waxa weeye qofku inuu shaqooyinkii soo yareeyo calaaqooyinkii uu lahaa iyo xidhiidhadii iyo safaradii soo ururiyo dee markaad isleedahay qur'aan iyo qiyaam iyo salaad intaasoo dhan barnaamij u diyaari macnaheedu jawigaagii hore waa in wax iska bedelaa dhib ma laha haddii bishan ramadaan la istahneeyo ama la ishambaliyeeyo oo bishaa soo gashay iyo khayrka aynu hela ilaahayna soo gaadhsiiye in laysku hambaliyo bidco ma aha culimmadu waxay u daliishanayaan xadiidka saxiixa ee nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ataakum ramadaan shahrun mubaarak farad allaahu calaykum siyaamah waxaa idiin yimi bil ramadaan la yidhaahdo oo barakaysan oo ilaahay soomkiisana idinku waajibiyo kaa iyo kaa iyo kaas intaasoo khayrahoo fara badan iska leh markaa ogeysiisku asxaabta sii ogeysiinaya waxay dhaban tahay ama ay u taagan tahay inuu ugu bushaaraynayo rasuulku sala allahu calayhi wasalam bishan waxyaabaha inoo habboon waxaa ka mid a inaynu axkaamta soomka qaarna waan soo sheegnay wax ka sii ogaano oo soomkii mid waajib bay tahay in la isku xidhiidhiyo on la kala googoynin sida bishan ramadaan oo kale ikhtiyaar uma lihin inaad maalinna soonto maalinna iska dayso waxaa kale oo isagana tataabuciisiyo in la isku xidhiiriyaa uu waajib yahay soomka kafaara gudka hadduu qofku qof dilo ama xaaskiisii bisha ramadaan la kulmo waxaynu 2 bilood oo sooma ayaa lagu lahaa oo isku xidhiidhsan ikhtiyaar uma laha inuu googooyo maalintii 60 maalmood uu isku xidhiidhinaya soomka kafaara gudka ah laakiin de soomkii dhihaarkuna waa la mid suuratu qad samica ay ka warramaysay ninka xaaskiisii iska xaaraantinimeeyey 3 soom oo kafaara gud ah
ma soomkooda uu isku xiriirsan yahay quraanku tataabuc buu shardi ka dhigay inuu yahay soom isku xiriirsan soomka kale laakiin ka soo haray ikhtiyaar buu leeyahay qofku inuu jarjari karo mithal ramadaan oo kale qalaheeda intii ka tagtay markaad qalaynayso waad googoosan kartaa si yar baad la iman kartaa soomamkii sunnaha ahaana waa saas oo kale marka ahkaamta siyaamka iyo wixii marba faa'iido waa qaybteen gaadhaynu ka qaadan maanta intaasaynu ku soo koobayna Allah inagu anfaco soomka salaada sadaqada dhikriga ducadana Allah inaga aqbalo dambigeena iyo kii waalidkeena Allah dhaafo waxaynu haynana Allah inoo barakeeyo balaayooyinka wareegayeen ka baqaynana Allah inaga badbaadiyo dhibkana muslimku meel ay joogaan ba Allah ka dul qaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh